dawladda hoose degmada Togwajaale iyada oo ka hortagaysa khasaarihii faraha badnaa ee soo gaadhay bilihii la soo dhaafay ganacsiga degmada Togwajaale ayaa waxa ay maanta fuliyeen hawlgallo lagaga kicinayo ganacsatada ku dhex ganacsata toga weyn ee degmada Togwajaale ee xuduudda labada dal ee Itoobiya iyo Somaliland u dhaxaysa iyada oo mas'uuliyiinta degmada Togwajaale oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen inay ganacsatadaasi u rari doonaan meelo ay ku ganacsadaan waxaana arrimahaasi ka warbixiyay gudoomiyaha degmada Togwajaale mudane Xaashi Maxamuud Cabdi iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Wajaale Mursal Nuux Ismaa waxaana yiraahdeen warkaysan inta toga bartagiisa aynu joogno dadkii biyahaasi iyo waxa qaadaya hadhow toole camaad mooyaane imika ma arkayaan imika kaaba biyo ka soo dhacay waxa arkaysan darkiina waxa soo weydin muuqda waa toga bartagiisa halkaas ummadii laga keenay dawladda ummaddu hadayna waxba arkeenin oo ay waxba aqal lahayn annaga oo aqal kan aqbal meena toga bartagiisa inay fadhiistaan saadaraadeen waa la banaynayaa qolashada toole toga bartagiisa ku dagaalamay looma baahna waxyaaba qaar dadweynaha sharafta leh waxa sheegayna dadtiina anoo ka shaqeynayna dadtiina ayaanu ka shaqeynaynaa qofka aan dadtiisa garanayna annaga garansiinay looma baahnaade in qofku daadku qaado baritoona la yiraahdo daad baa qaaday hantidiisii aad u burtay dawladdu maxay uga tali weyday meesha cidi joogi waxa soo dhamaar baritoona la shubi doona ya daadin tuulees soo galin baa la iska moosaabalay saadaraadee dadweynaha sharafta leh waxaanu ka codsanaynaa inay toga bartagiisa ka waantoobaan iyo xadka waxa weeye toddobaadba waxa weeye kaambeynkan iyo ololaha waanu wadnay farxad bay noo tahay hadaanu nahay maamulkii Wajaale waxa weeye halka imika aanu taaganaysaa gudoomiyuu sheegay waxa weeye waa togi bartagiisa waxa weeye de toguna waxa weeye riski fara badan buu leeyahay daad baa soo rogmanaya hantida ummadda dadka masaakiinta ku qanacsanaysa baritoole waxa weeye daadka qaadaya waxa weeye inaanu bulshadeedu u talino ayaa loo baahan yahay meel baanu u diyaarinay imika iyaguna waxa weeye awaamirtii si fiican bay u qaateen halkii baanu geynaynaa imika waxaanu markaa u sheegaynaa bulshaweynta ku naqan degmada Wajaale waliba gaar ahaan ganacsatada yaryar inay awaamirta ay soo saarayaan maamulkooda ay u hoggaansamaan waxaanu u sheegaynaa annagu waxa weeye iyagaanu u adeeganaa annagu shacbigaanu u adeeganaa maamulkii degmadanu waxaanu la doonaynaa inay iyagu muxuu ahaayey waxaan dhibaato soo gaadhin ay muxuu ahaayey ay ku qanacsadaan baanu doonaynaa ololihii baanu wadnaa muddo imika 5 cishaanu wadnay hadda waxaanu ku jirnaa akabaaba iyo togaanu ku jirnaa imika maanta waxaanu doonaynaa inaanu nadiifino togaasi digniin waxaanu dirayaa muxuu ahaayey dadka hoodheer iyo dadka miisleyda inaan lagu arki karin haday toga tahay haday tahay meheradaha hortooga waxa weeye lagu ma arki karo meelaha aanu u diyaarinay ee sariimada ka dambaysa ayaa la geenayaa oo ay ku jiraan hawlwadeenadii dawladda hoose ee jineerada halka ayaanu doonaynaa ayaanu u qorsheynay inaanu geyno cid dambe oo halka lagu arki doona ee u dhaxaysa labada dal ma ogolin isku soo wada duubo dawladda hoose ee degmada Wajaale ayaa waxa ka go'an inay baneeyaan wadooyinka xidhmay waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Wadeen shabakada wararka ee Gabiley Media.net degmada Togwajaale.